human capital oo macnaheedu uu yahay horumarinta aadanaha ama shaqaalaha, waxaa la yidhaahdaa waa qiimaha dhaqaale ama economic value-ga uu leeyahay qofka shaqaalaha uu leeyahay. waa isku darka aqoonta, tababarka, khibradda iyo caafimaad qabka qofka shaqaalaha. sababta waxaa la aaminsan yahay waxyaabahaas markii laisku geeyo waxay kor u qaadaan awoodda wax soo saar iyo faa'iidada ay samaynaysa meesha qofkaas uu ka shaqeeyo. Theodore Schultes 1961 ereygaas isticmaale article la yiraahdo Investment in Human Capital. 64 Gary Becker book ka qoray Human Capital yiraahdo kadibna ku qaatay Nobel Prize. labada dhaqaalayahanba doodooda waxay ahayd ama ujeedadooda waxay ahayd in maalgelinta lagu sameeyo waxbarashada iyo tababarka shaqaalaha in ay la macno tahay ama ay la mid tahay maalgelinta lagu sameeyo qalabka wax soo saarka lagu sameeyo. Baker asagoo ka hadlayay amaalmarinta xafladda amaalmarinta ku qaadanaya wuxuu sheegay 75% waxa dhaqaalaha dunida yaalo dhan inay ka timaado aqoonta ay dadka leeyihiin, qalabka iyo kulli waxa kalena 25% bas ay leegtaa. Human capital-ka waxay muhiimad weyn u leedahay dhaqaalaha iyo wadanka iyo ummadda guud ahaan. waxyaabaha ugu muhiimsan ama meelaha ay saameynta ku yeelata ama muhiimadda koowaad oo ay leedahay waxaa waaye waxay kor u qaadaa wax la yidhaahdo productivity ama awoodda wax soo saar ee dadka. Productivity-ga waxaa lagu cabiraa waqtiga ay ku qaadanayso qofka inuu wax soo saaro. qof kasta qofka uu ka aqoon yaryahay uu ka aqoon badan yahay uu ka waqti gaaban yahay wax soo saarka markii laga hadlayo. waxaa la yidhahdaa 1870 qofku wuxuu u baahanaa 1800 oo saac inuu sanadka shaqeeyo si uu u helo cunadiisa uu helo. maanta qofku wuxuu u baahan yahay 260 saac bas inuu shaqeeyo si cunno ku filan sanadkii uu u helo. sidoo kale kambaniyada dunida waxay ku kala fiican yihiin ama waxay ku kala horeeyaan waqtiga ay ku qaadato inay wax soo saaraan. tusaale kambaniga la yidhaahdo Toyota 13 saac bas ay ku qaadataa inuu eber ka soo bilaabo ilaa gaari socdo oo la isticmaali karo uu soo saaro. marka in waqti yar oo qofku wax ku soo saari karo waxay u baahan tahay maalgelin lagu sameeyo aqoontiisa, sidoo kale inuu caafimaad qabo, khibrad inuu u leeyahay, sidoo kalena tababar fiican uu qabo ay u baahan tahay. Productivity-ga ama wax soo saarka sidoo kale wuxuu go'aamiyaa horumarka dhaqaale ama caafimaad qabka well-being-ka wax la yiraahdo dhaqaalaha wadamada ay haystaan. sanadkii markuu dhamaado kale wadamada waxaa lagu cabiraa deeqtoonaantooda. waxaa la dhahaa wadan hebel sanadkan wuxuu kobcay 2%, wadan hebel wuxuu kobcay 4%. kobacaas ama deeqtoonaanta dadkaas u siyaaday macnaheedu waxaa waaye waxaa siyaaday awooddoodii wax soo saaray siyaaday. marka awoodda wax soo saaran kaliya waxay siyaaday marka human capital ama horumarka dadka ay ka sameeyeen wadankaas u bato. human capital productivity waxaa la dhahaa qofka shaqaalaha ama engineerka jooga UK Ingiriiska jooga